الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهده ونقوم هذا قينا ما أنت ومارن تاريخية سوماليلاند waxay ugu suntanaan doontaa baal dahaba maanta ilaahay wuxuu ina gaarsiiyey guul weyn oo dhammaan Soomaaliland ku guuleysatay oo wixii Soomaaliland jecelna uu ku farxayo cadawga Soomaalilandna uu ku jabayo ayaa maanta taariikhda qoraya waxaan hambalyeeyaa golaha baarlamaanka cusub ee maanta shaqadu bilaabmayso oo ducaynayaa inay hawshooda si qarannimo u gutaan waxaan hambalyeeyaa 6 murashax ee tartanka u galay 3 kursi ee hogaaminta baarlamaanka waxaan hambalyeeyaa odayaashii maanta maamulay arrinta ee uu kow ka yahay gudoomiyaha guurtida gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ama wakiilada baashe iyo gudoomiyaha maxkamadda sare go'aanada iyo talaqabeennimada iyo siday u xalliyeen mashaakilkii ka hor yimid oo shir walba mashaakil baa ka hor yimaadee habka qarannimada ah ay u maamuleen iyo cadaaladda aad iyo aad baa loogu mahadnaqayaa maanta odayaasha maamulay iyo xooghayntoodii iyo taariikhda ayna gaarsiiyeenna waa ku hambalyeynaa ilaahayna waa ugu mahadnaqaynaa qarankuna wuu ogaanaya hawsha ay qabteen waxaanu u mahadnaqaynaa golayaasha xubnaha baarlamaanka ee maanta fadhiyey golaha wakiilada ee cusbaa ee doorasho aad isugu dhow ku jiray sida gobonnimada leh iyo isdhowridda ee hadday saqar yar dheesha laysu qabanayay ee laysu aamusinayeyna quruxdaanu kaga soo baxnay maanta Soomaaliland oo dhan baa guulaysatay nin quri ma guulaysan xisbina ma guulaysan Soomaaliland oo dhan baa guulaysatay xildhibaanay tartamayay gudoomiyaha baarlamaanka cusub Cabdirasaaq waan hambalyeeynaa oo waa soo dhaweynaynaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad waa soo dhaweynaynaa waanu hambalyeeynaa gudoomiye ku-xigeenka saddexaadna waa soo dhaweynaynaa oo waa hambalyeeynaa gudoomiyihii la tartamayay professor yaasiin waanu hambalyeynaynaa tartan si dhow buu ahaa waa lagu talagalay waa dimuqraadiyad gacantaa la taagay lagu kala baxo siduu u hambaliyeeyey iyo waayeelnimadii muujiyeyna waa soo dhaweynaynaa yaasiin qaranka in badan buu soo shaqeeyey haddana wuu shaqayn doonaa waa oday halkiisii fadhiya maantana gacanqaadkii iyo soo dhaweyntii aad isku hambaliyeyseen qarankaa u heliseen dhammaantiin waan kugu hambalyeynaya yaas cumar jaamac oo in badan ku soo jiray mar soo bilaabay miidiyaha jaraa'id qori jiray haddana siyaasadda intaa ku soo jiray malaha dee caaqil la ahaa oo talada weligii alli wax ku soo lahaa oo isla intaa soo halgamay maanta markii laga helay siduu siciid u hambalyeeyey isagana waan ku hambalyeynayaa waana xeerkii Soomaaliland lagu yaqaan xildhibaan cali gudoomiyaha saddexaad waan ku hambalyeynayaa waana soo dhaweynayaa qodax oo intaa xisbi ku soo jiray oo siyaasadda ku jiray oo soo dadaalay gacanta markii la taagay meel may tagina Soomaaliland baa guulaysatay adiguna inaad hambalyeysay waan kugu hambalyeynayaa dhammaanteen waynu hambalyeynaynaa maanta waxaan aad iyo aad u hambalyeeyaa saddexdii la doortay halkana soo taagay saddexdii cusbaa ee golayaasha soo dhawaada gudoomiye hambalyo gudoomiyaha koowaad hambalyo gudoomiyaha saddexaad hambalyo intaas waa hambalyadii maanta waxaan leeyahay waa maalin Soomaaliland faanayso anoo magaciina Soomaaliland hadda ku faanayana cadawga Soomaaliland waxaan leeyahay Soomaaliland halkaasay gaadhay Soomaaliland cadawga qura ka soo horjeeda ee maanta xamar isla rafaraya waxaan leeyahay iyo inta af Soomaaliya ku hadashaba waa daawarayseen Soomaaliland dimuqraadiyadda ugu furfuran iyo tartanka ugu adkaa iyo qarannimada inay u midaysan tahay oo qof walba Soomaaliland qarannimada ilaalinayo cadawga Soomaaliland iyo inta lugta jiidaysa ha ku cibro qaadato
waxaan hambaleynayaa shacab weynaha Soomaaliland ee codeeyay ee maanta u taagnaa ee dhagta taagayay dhammaantii waan hambaleynaynaa waynu guulaysanay tallaabo hore u qaadnay qarankana waynu wadaynaa ilaahayna guushaayna gaarsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu